waxaa farxad weyn noo caawa inaan ku ciidayno sanad guuradii 3 ee maalintii ummadda Soomaaliyeed ay iska rogtay gumaysigii markii ugu horreysay waxay ahayd markii gobollada waqooyi 26 Juun ay ka xorowday gumaysigii Ingiriiska waxaa soo raacday 1 Luulyo oo ay midoobeen koonfurtana ay ka xorowday gumaysigii Talyaaniga halkan waxaa u badan yihiin oo ugu badan dhalinyaro fara badan dadka da'da ah ee anigoo kale ah aad bay ugu yar yihiin sababtu waa maxay sababtu waxaa weeye dhalinyaradu ma arag dalkoodii oo xor ah oo horumar gaaro adduunka la tartamahayo balse waxay ku koreen dagaal dadka da'da ana waxay ka qayb qaateen burburkii dalka ayay ka qayb qaateen iyo qarannimadii Soomaaliyeed marka caawa waxaa farxad noo ah intaanoo dhalinyaro ah in ay ka soo qayb gasho oo in taagan yahay ee calanka ruuxayaan qalbigooda ee ku jiro dalkaas 13 wiil laakiin ay ka dambeeyaan 13 gabdhood ayaa ayaka waddanka oon gobonnimo aqoonin ama dowladnimo aan aqoonin annagoo u kala degan deegaan qabiil ah ceelal kale leh deegaan kale leh annaan ku riyoon inaan dowlad noqonno oo sumad noogu dhigan tahay xoolaha ayay 3 wiil aqoontooda markaasi way ka yarayd aqoonta dadka Soomaalida maanta ay leeyihiin khibradooda iyo waayo-aragnimadooda way ka yarayd dadka Soomaalida maanta ay leeyihiin xoolaha ay haysteen aad bay uga yarayd xoolaha ummadda Soomaalida ay maanta haysato haddana waxay ku fakereen ummaddan isku midka ah isku codka ah isku luqada ah isku diinta ah isku aragga ah ee wax ay ku kala duwan yihiin ayna jirin in ay mideeyaan oo ay dowlad ka dhigaan ayagoon horay dowlad loo soo maray dadkaas 13 ah maanta waxaad fiirisiin waxaan ku sugannahay iyo dadkaas dhalinyarada 13 siday ku fakereen maanta waxaan ku sugannahay dalkeennii ay xoreeyeen ee ay mid ka dhigeen ee ummaddii Soomaaliyeed ee deegaanka kala lahayd ay isu keeneen ee mideeyeen ee hal calan u sameeyeen in maanta calamo kala duwan ay yeelano inaan xuduud kala duwan yeelano inaan dowlado kala duwan yeelano inaan innakii colaad isu hayno inay dadkii kaloo dariska ahaa ee dam ku jiray dalkeena walaalka dalkeena badda uu leeyahay arka iyo dowladda dariska nala ah tiradeeda intay dhan tahay 120 milyan aan bad lahayn iyo Soomaaliya oo badda ugu dheer Afrika leh walaalka markaasaa annakii laysu keentaagay annakii inaan isdilno inaan isqaybinno inaan kala irdhowno inaan maslaxad u raadsanno dowladihii kale ee ajnabiga ciidamadoodii inay maanta joogaan oo maxay u joogaan inayna kala celiyaan yay kala celinahayaan ciidamadoodu waxay kala celinahayaan ummaddii Soomaaliday kala celinahayaan waa sida la dhahay xaggeen u soconnaa xaggeesa ka nimid 13 wiil ay ka dambaysay 13 gabdhood xaggeen naga keeneen xaggeensa maanta u soconnaa
حكاية كسرنا وحن كسرنا مال اللي قصوا بقولين وكسرنا مال اللي قصوا بقولين كان بعد ويدي محاسب كل دوتي بقى والوالد كان دعوة هاي محاسب كل دوتي وحن شيء جروا وحن شيء جروا وحن كل دوتي بل أدوك فكرة إيه الفكرة المحاسب هاي محاسب كل دوتي كجواب مركز لا يستحيل ونبصره إن انتهى وحنقول كل دوتي أن أربع إلى قف كلام أربعة أنت سوف تقول واحد كلام ما تقول هل تقول لي نمك ترجع الواقع ولكن أدوك أنت يدي ما تعيسه أدوك أنت يدي ما تعيسه دقاء ما السعودة يوكرين ما دقاء السعودة إسلامتي ومسلمين أنت مسلمين خلنا وحال هيستناه البيرات ولي وحال هيسمى وليه وحال هيسمى حوله وحال هيسمى قانون تربي كبتي وقد ويمتي الناس كل ما تمار كي ننتبه وكرسوا به كريمة تلكين لكن وقمنا قلي قوة إلهي بتوار بيقولون وصل ساري هتوب دقاهم لهم وحلا جاي أبا إيه تبيور وياه محل سجلنا بركة محل دول لماذا أقول بقولنا محل شعب كان مكلف بيننا محل حدودنا بأنت قبلنا أصلينا حدودنا قبلنا إنجرنا شقين دول محل أصلينا وهذا وقت الصوماليين إلى برارته ودك بلاروجنا هي معها دك وين السياسة كلها دك بلاروجنا هي ودك دليرنا إعاوة هالكام فديها عاو سنين إلا يكون هذين مصر أي بلاروجنا هي دك فدرينا هي الصومال لماذا وحيدا دك بكرة مدانا أجنبية ودماء أجنبية بكرة عارفين ولديه هرماركا ما أنت واحد بيجلسنا هي روت وكهر لهايا وحا دولتيسا كقبل هايا وكهر وحو شعب جيسا وقبل هايا وكهر انت وشغالين هايا انت وانترنتي قرين هايا انت وتعليم تسير هايا هو اللي تنتو سوقان هايا كهر لهايا الشعب الصومالي وحال ربائن اي بلاريان سنة كستا أفرتي سنة أفرتي سنوات odayaal lacag qaadanahayaan ayaa waxay soo xulahayaan dad markaasay dadka iska horkeenaya waxaan rabnaa marka ilaahay waxaan ka baryaynaa 64 sano markay ka soo wareegto in aan aragno ummadda soomaalida oo isbedeshay inaad bedeshiin adinku ummad waxaa bedela dharkeeda adinku inaad bedeshiin adinku inaad midowdiin adinku inaad gobollada ku wareegtiin adinku inaad dhahdiin annagoo gobollo kala duwan ah ayaa rabnaa midnimada soomaaliyeed soomaali inay kala tagtumar bal asbaabta ay loo dhiigka loo daadinahayo sool iyo siraag dhiigooda loo daadinayo maxay tahay waxay dhiigga dadkaas loo daadinayo soomaalida ah ee muslimka maxay ku tuqotontaa maxay raacsan tahay maxaa yani caqligaas muxuu keenayaa waxaan leenahay marka ummadda soomaalidu ha baraarugto ummadda soomaalidu ha baraarugto dhallinyaradu ha baraarugtaan oo dhallinyaradu waa inaad ku dayagtiin dhallinyaradii soomaalinimada dhalisay dhallinyaradii calankan aad wadatiin oo labisantiin oo caawa ku maraysiin nairobi dhallinyaradii dhalisay odayaal maahayn waa inaad ku baraarugtiin waa inaad isu tagtiin maaha inaad reer isu fogoogdiin ood kala fogaatiin oo calamo kale kala samaysataan maanta way leedahay dadka yimid
وأيدي هذا فيس مناسبة أي تاي يدك يجيب وأيدي لكن مركي أي نقطة دبالدك دولة الجمهورية مركي أي نقطة دبالدك دولة الجمهورية مركي صوت قبيلات بكتير إنه هي الجمهورية صوت كده وكده ويجي كلام صوت فحيا سبب واضح وفعل ما كتير فعل قبلي أهم كتير لكن أديك وحط من السؤال ما كتير قف كينا قف ماشي الفرديات وفعل قبلي أكتير مجموع قف حتى الفرديات قبيلات أي ماشي كمجموع وعنا لدهاية أو مدة الصوماليات كدهاية وعلى كاس بلوكة على كاس مجريكا لكن على كاس بلوكة قف قصة صوماليا ومشاقنا حياة ونقفانا حياة ونقوي مانا حياة لكن على كرم إيمان صوت كمان بدون كرم على كرم على كرم كمان بدون كرم وعلى مدينة كمان بدون كرم حكومة بدون كرم على كاس بلوكة الدليلات الصدق توقع هي حاسس كوني أي دليل لحد يصدق سنكوه أي دليل أيامكم نجاح علمي أيامكم نجاح قوية أيامكم نجاح تفردي أيامكم نجاح تقارية وين دهب كوني كده هي دهب كوني كده هي ورينا هوني كده هي ما تروان هذا التقارية اللي تقدر سيسيا من كم مليونير بالجهني كنا سومالي كده هنا من كم مليونير بالجهني وده كان مركب وقرية نقول شيء وحنخشها يا باشا قطباء كده بيستمعوا قطباء كده بيستي يوتيوب كما محمد سياد برا وحولها هي والله وهذه محمد سياد برا مدحوينها أروى المعالجة يعني ديك برها لكن والله يوم المرأة بيستي وحولها هي محانا هي وحانا هاي ودهي ده القليئة لكن تجلس فخرهم فيه قف كفر كاري كرامتر ده وحانا هاي ودهي ده القليئة وتجلس فخرهم وما معناها ده القليئة وتجلس فخرهم وحاول التاني وحاولنا هاي والبيانات وين وحاولنا هاي كومباني السباب وينكي كمالتين وحاولنا هاي حوالي لكن ده كان مين وحصول صار ماله انفستمنت ماله لما تكحن ما تدرجي مع فخر كله كعنت يوصل نيو يا دجن ايو حلاي وحان هيئتها قيدة أيوليه وهيئتها شيء مضى أمم الصوماليين مركا أي ميرها وصولها هي كانت الليلة كدودة كيرا هي سأل أمم الصوماليين وحفر لكن قواس بها دعمها يوتان يمين وصف لها قد وصف لها وقروك وقرصوا بالكلام وميرا كلام وتوزمين هيئتها غير ومكينان الشرب المكينان marka dadka Soomaaliyeed waa inay baraarugtaan dhalinyaradu ma filayno wallahi ma filayno dadka waaweyn ee da'da ah ee imaan waayo xuskii lixdan iyo saddex guuradii qarannimada Soomaaliyeed asaaskeeda inay ka sugaynin inay ummad Soomaaliyeed mideeyaan kama sugaynin waxay sugaynin inay ummad Soomaaliyeed mideeyaan oo ay ka soo baxaan 13 leegada wakaas من هذا سوق بالياسين اسمه الحاجي أيام نهار وليد كي صدق يعتبر يا كرنا أديك بكرة من كتير ياسين حاجي اسمه ما لها وهو هذيك كي صدق يعتبر كلاجنا هو كان هو عبد الله عبد الله حرمه مقابل سيد محمد عبد العاصي احمد قريب وحاصل وضعها كذا شيء وحاصل وضعها كذا شيء تاريخ دي من بطن ومرضو حتى تاريخ ده كم دور ويسيس ويسر ويسمى يقول هي عبد الله بن سراح المرض يقول يقول برضو آله
وحاولنا مركز الغيرات الصوماليين إلى تاريخنا بطان إلى waxay ku faanaan oo ay sheegan karaan adduunka dadka taariikhda sheegtaan taariikhdina weydiiniga wax wanaagsan Soomaali maxaa lagu yaqaanaa pirates lagu yaqaanaa pirates Soomaali maxaa lagu yaqaanaa pirates maxaa lagu yaqaanaa dil iyo dagaal dad isdiihaya ayaa lagu yaqaanaa kuma sheegayaan wanaag oo dhan kuma sheegayaan annagu inaan raadino way marka taariikhdeena inaan raadino way oo waxa wanaagsan ilmaheena barno way ilmaheena uga sheekayno way dagaaladii ay soo galeen Sayid Maxamed Cabdulla Xasan dagaalkii soo galeen kuwii kale ay soo galeen waa inaan ka dhaadhicino ninkaan ay saxay ciidada ninka gurmuruhu Allahu naxariistay in halkaan lagu aas wadankiisii lagu aasin ka waran ninkii ciidada isku duray wadankiisii laguma aasina intaa lagu aasay oo ka qaybgalay guurtaas waxaan marka ummadda Soomaaliyeed in ay xafladdaani inay noqoto wax sanad kasta la isaga yimaado laakiin inay noqoto wax lagu fakaro oo laga sheekeeyo oo la raadiyo taariikhdeeda oo la raadiyo ilmaheena iyo generationka soo socda sidii loogu sheegi lahaa wadaniyada waxay tahay ummadihii dhammaan way ku faanahayaan dadkoodii bay ku faanahayaan oo dadkoodii bay ku faanahayaan oo taariikhdoodii bay ku faanahayaan annagu taariikhdeeni aawe taariikhdeeni aawe intii meel haddii laydin weydiiyo 13 nin magacooda sheega waxay la tahay inay ku adkaan lahayd magacyadooda ay ila tahay marka qasda dad baa idinka dhashay taariikh leh Sayid Maxamed Cabdulla Xasan baa idinka dhashay Axmed Gurey baa idinka dhashay waxaa idinka dhashay rag kale iyo gabdho kale ay idinka dhashay xasuusta dadkaas Sheekh Xasan Barsane ayaa idinka dhashay dadkaas oo dhan waa Soomaali taariikh leh marka xasuusta waxaan isugu bahambaliyaynaynaa sanad guurada 63 ee ka soo wareegtay aasaaskii dowladnimada Soomaaliyeed waxaan rajaynaynaa inay ummadda Soomaaliyeed baraarugto oo dowladnimadoodii ay dib u soo ceshato ummadda Soomaaliyeedna ay midowdo waxaan ku baraarujinayaa dowlad goboleedyada inay qarannimada soo celiyaan oo ay dowladda centraalka ay xoojiyaan oo ay dowladda dhexe oo xooggan haddaanan helin waddankeena ma kacahay wallaahi muusan kacaynin dowladda centraalka haddayna xoogaysan dowlado googo'an ma xoogaysan karaan waddanna ma ilaalin karaan waddanka dunkiisa lama ilaalin karo markaa soo dhawaada waa mahadsantii dhallinyaradan soo dhigtay ka soo qeyb galay